السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام صاحبيال kusoo dhawaada channelkeena Somali Community College oo alaaba aan kasoo tabino cashiro ku saabsan barashada luqadda Englishka. Cashirkeena maanta insha Allah waa conversation. Ciwaankiisana wuxuu noqon doonaa a wedding. Wedding waa aroos. Marka waa cashir ku saabsan aroos. Laba qof ayaa sheekeysanayso. Labada qofna waxaan ku matalaynaa A iyo B oo kala qoran red and blue. Okay, let us start. Aan bilaabano. Have you ever attended? Weligaa ma ka qayb gashay? Attend wax laga qayb galaya waaye. Someone is wedding, qof arooskiis. Who was you ahaa? He or she ayada ama isaga. Have you ever attended? Weligaa ma ka qayb gashay? Someone is wedding, qof arooskiis. Who was you ahaa qofkaas? He asaga ama ayada hadday gabar ahayd iyo hadduu wiil ahaa qof ku ahaa. Yes, a lot wax badan ayaan ka qayb galay camal. But laakiin the most memorable midka ugu xasuusta badnaa memorable one is my best friend waa saaxiibkayga ugu fiicnaa arooskiisa ayuu midka ugu xasuus badan. Have you ever attended? Weligaa ma ka qayb gashay? Attend wax laga qayb galay waa ama meeting attended meeting oo macnahaas fadhi laga qayb galayo ama aroos ama xaflad attended wax saas camal ayaa yiraahdaa attend. Have you ever attended someone's wedding? Weligaa ma ka qayb gashay qof arooskiisa? Who was you ahaa? Who was he? You ahaa asaga. Ama who was she? Yay ahayd asaga. Yes, a lot wax badan ayaan ka qayb galay. But laakiin the most memorable one midka igu xasuuska badnaa is my best friends. Waa saaxiibadayda kuwa ugu fiicnaa arooskooda ayaa igu xasuus badnaa. Who went with you? Yaa kula aaday? I went with one of my classmates. Mid aan isku fasal ahayn ayaan isla aadnay. Where was the wedding organized? Halkee ayaa lagu qaban qaabiyay arooska? Organized waa wax la qaban qaabinayo. Where was the wedding organized? Halkee lagu qaban qaabiyay arooska? It was held waxa lagu qabtay in a restaurant maqaaxi downtown magaalada bartamaheeda. What did the people do? Dadka maxay sameeyeen in the wedding arooska? They enjoy waxay ku raaxaysteen wedding arooska. Feast way ciyaareen celebration macnaha markii oo ciidaha iyo aroosada markii la ciyaarayo ayaa la yiraahdaa festival ayaa ka imaada. Sang way heeseen and dance way qoob ka ciyaareen together ayagoo isla jiro. After giving kadib markii la siiyay couple waa lamaanaha best wishes rajo fiican macnaha ubad khayr qaba kala hela wax saas ayaa la yiraahdaa best wish of an everlasting happiness iyo farxad aan dhamaanin. Everlasting happiness farxad aan dhamaanin. What did the bride maxay caruusada and the groom ay caruuska way xirnaayeen? The bride caruusada waxay xirnayd white wedding gown gown weyn oo cad shulka naagaha markii la aroos lagu dhaxrido cad. While the groom halka caruuskana waa uu ka xirnaa black suit madow and a tie waxaa la yiraahdaa bahalka luqunta lagu xirto xariga dheer camal. What was the most interesting ritual in the wedding? What was the most interesting waxa waxay ugu xiisaha badnaa ritual ee caadada ah dhaqan caadadka in the wedding ee arooska dhexdiisa. Exchanging rings faraantiga la kala bedelanayo exchanging kala bedelanayo rings faraantiga is the ritual waa caado I'm quite interested in and aad u jeclahay. A wedding a special event arooska ma dhacdo oo macnaha arin oo macnaha special miya oo khaas ah. Special events dhacdo oo macnaha oo special oo macnaha gaar ah of one's life macnaha qofka arooska ma waxay u tahay event dhacdo oo noloshiisa qiimo weyn ugu fadhiyo miya in your country wadankiina. Yes, along with birthdays iyo xataa dhalashooyinka macnaha birthday maalmo qofka markuu dhalashada dhiganayo sanad guuridiisa dhalashada. Do people in your country dadka wadankiina get married may guursadaan ayagoo yar waqti hore? Not really maya run ahaantii. The average age sanadeedka
To get married ee loo guursado for a woman naagaha is 27 waa 27 and for men nimankana is 29 waa 29. What is the ideal age? maxay tahay sanadka ugu fiican to get married ee loo guursado in your opinion adi fikir ahaantaada? Well, hagaag 27 will be an ideal age waa sanad macquul ah. Ideal age women haweenka are most charming and mature at the age of that age 27 ayay naagaha ku qaangaaraan macnaha meesha ugu fiican charming soo jiidashada leh I guess ayaan malayn. How has Sweden changed recently? Arooska soo isu bedelay waayadan dambe. The most noticeable change isbedelka la taaban karo is the reduce of rituals. Waxaa waaye dib u dhac ku imaada ama la yaraanta la yareeyo caadooyinka in the wedding ee aroosada. There used to be waxay ahaan jirtay more steps in weddings. waxyaalo inta arooska dhacan waxyaalo badan hore loo sii sameeyo caadooyin ah. Years ago sanado ka hor than there are now oo hadda aan jirin. The most noticeable change isbedelka ugu weyn hadda la taaban karo is the reduce of ritual in the wedding. Waxaa waaye caadooyinka yaraada ee aroosyada. There used to be more steps in wedding. waxay ahaan jirtay there used to be more steps inaan tallaabooyin badan in the wedding aroosyada years ago sanado ka hor than there are now ee hadda si ay ahayn than there are now. marka asxaabi waan salaamay channelka subscribe hala saaro. wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. waxaan ku duubayaa videoga aan cashirkan kasoo fasiray daawasho wacan. Have you ever attended someone's wedding? Who was he or she? Yes, a lot. But the most memorable one is my best friend's. Who went with you? I went with one of my classmates. Where was the wedding organized? It was held in a restaurant downtown. What did people do in the wedding? They enjoyed wedding feast, sang, and danced together after giving the couple best wishes of an everlasting happiness. What did the bride and groom wear? The bride wore a white wedding gown, while the groom wore a black suit and tie. What was the most interesting ritual in the wedding? Exchanging rings is the ritual I'm quite interested in. Are weddings a special event of one's life in your country? Yes, along with birthdays. Do people in your country get married early? Not really. The average age to get married for women is 27, and for men is 29. What is the ideal age to get married in your opinion? Well, 27 would be my ideal age. Women are most charming and mature at that age, I guess. How have weddings changed recently? The most noticeable change is the reduce of rituals in a wedding. There used to be more steps in weddings years ago than there are now.